la soo daawaday barnaamijka xiisaha badan ee tartanka hal-abuurka tiknoolajiyadda ee sanadka 2021 باقن وبرشدا dadweynaha باقن waana barnaamijka xiisaha badan ee iska kaashadeen bangiga caalamiga ah Premier Bank iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland waa barnaamij xiiso badan oo ku tartami doona dhalinyar iyo aqoonyahan tiro badan oo ku kala guuleysan doona $18,000 lacag gaadhaysa oo loogu talagalay in dhalinyartaasi la siiyo hal-abuurka la yimaada boqolkiiba boqol bugayo qalin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناسن داودي كسر دوادا برنامج كحيسها بدن ترتك على أبورك التكنولوجيا دا سنة كلابد يكون يكوبي لبعتن برنامج كان برنامج لوجو ترى جلي رجلينته أقوياء كي يدليرت كل دوان جودهم با قبل ذا كل دوان السومال لان الدنا إسلامر كاسينا برتي أقوان التكنولوجيا دا أي وحى فلونيسا إسلامر كاسينا مال جلينا يا wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo bangiga caalamiga ah ee Premier Bank wana barnaamij ay ku tartami doonaan dhalinyar iyo aqoonyahan tiro badan iyo ku guuleysan doona lacag gaadhaysa $18,000 oo lacagta Mareykanka ah waxaan jeclahay inaan idinku soo dhaweeyo qayb kamid ah barnaamijkaasi bani aadamkuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkee يوكاغا بوكتي باقن برشدا ددوينها باقن برشدا ددوينها إلا باهيايو لبالارياي إلا باهيايو لبالارياي بلانتنوا boqolkiiba boqol bugayo qalin lagu baratama waxaan jeclahay in qaybtiin oo ah qaybtii ugu xisaab badneed baynu soo gaarnay waqtigan waa qaybtii practical ka ahayd ama ay tusoo taabsi in barnaamij koox walba soo bandhigto wixii ay sharaxayeen ama barnaamijkii ay afaan soo bandhigeen in ay bulshada tusaan waxa barnaamijkan habeenkan caawa ku tartami doona saddex kooxood oo runtii aan rajeynayay inay soo bandhigi doonaan barnaamijyo ay bulshada ka faa'iido waa kooxda Elite Software kooxda kale Job Charters iyo kooxda West Tech dhamaantood bu guul baan u rajeynayaa waxay halkan ku kala qaadi doonaa caawa calafkooda waxaan u yeeri doonaa teamka la magac baxay Elite Software waxaan jeclahay halkan yimaadaan kadibna wixii ay ka shaqeynayaan barnaamijkii hal-abuureen inayna tusaan systemka qaabka uu shaqeynayo iyo sida uu macquulka u yahay inuu hirgalo waan soo dhaweynayaa kooxda Elite Software bismillaahi raxmaani raxiim qaybta webka systemka markaan gudagalno waxa qofka u soo bixi doona interface noocana oo halku ka gali doono oo qofka beerolaha iyo qofka kale ganacsadihiiba halka iska diiwaan gelin doonaan bismillah qofka beerolaha kale wuxuu iska diiwaan gelinayaa halka create account samaysa account ka dadto xogtiisa ay kamid tahay halkan ayuu diiwaan gelin doonaa wuxuu gelin doonaa xogta nooca ay kamid tahay sidoo kale isagoo dooran doona sawir oo profile u haan doona sidoo kale halkan wuxuu ka dooran doonaa inuu yahay beerole qofku oo si ugu ogolaado inuu yeelan doono featureska soo markuu wuxuu ku redirect garan doonaa qofka beerole markuu login sameeyo wuxuu arki doonaa dashboard noocana oo uu isagu khudaarta soo galiyay iyo wuxuu sidoo kale arki doonaa khudaartay iyo dalagga inta kale ay soo galiyeen beeroleyaasha la mid ahi isaguna sidoo kale wuxuu soo gelin doonaa dalagga beertiisa halkan ayuu ka soo gelin doonaa dalagga beertiisa isagoo nooca khudaarta soo gelin doono oo doonaya tusaale kale aan idhaa xadiga uu ka hayo iyo cabirkeeda oo ku cabiran tusaale kale aan idhaahdo wuxuu soo gelin sidoo kale uu soo gelin doonaa khudaartiisa wuxuu kaloo yeelan doonaa menu uu kala socon karo waxyaabuu soo geliyay iyo dhammaan khudaartiisa halka uu kala socon doono sidoo kale waxaan u sameynay qofka dhibaatooyinka inta badan haysan jiray ee la kulmi jiray waxa kamid ahaa inaanu inta badan uu xisaabo badan ay ka lumi jireen markuu muddo badan soo diro xisaabtii
so waxaan u sameynay qayb computerized accounting oo tusaale maalinba intuu soo diray kale uu soo gelin karo so halkaa reportka wuxuu samaysan doonaa report tusaale kale maanta hadduu diray oo kale hadduu tusaale kale tamaandho kala diray ay hay'adoo kale 20 xabo kale 20 saxaabo kala diray tusaale kale 30 kun oo kale report yaro si fudud ugu sameynaya si fudud ugu kaydinaya xogtiisa ayuu samaysan doonaa oo hadhow la daabacan karo si hadhow ciddii uu khudaartiisa ku dhici jirtay uu la baxo uu yiraahdo adeegaygu intaas kale waxa soo kale halkan wuxuu kala socon doonaa gawaadhida ku jira systemka oo kale halkan waa ta ugu muhiimsan oo ah qiimihii saxda ah inuu la socon karo qofka beerolihii iyo maalinba suuqa khudaartii halkii ka marisay qofka ganacsadihii wuxuu sanoo kale si lamid ah u arki doonaa dhammaan waxyaabihii la soo geliyey khudaartii la soo geliyey goobaha laga soo geliyey cidda soo gelisay sidoo kale halkaa waxaa ka muuqan doona search criteria ku baari doono dhammaan uu magaca khudaartu doonayo sidoo kale wuxuu ku dhufan doonaa dhammaan program doonayo isagoo si uu dhammaan informationkeedii dhammaystiran uu arki karo sidoo kale wuxuu si fudud uu arki karaa inuu maapkeeda kale ka tago meesha doonayo maapkeeda hadduu tusaale kale marka mobilka isticmaali kale sidoo wuxuu sameynayaa inuu nearby ku search gareeyo korba beerta ugu dhow uu si fudud ku arki karo isagoo beerta xogteeda si fudud ku heli karaa sidoo kale isaguna wuxuu arki karaa qiimaha khudaarta ay ka marayso dalka sidoo kale logistic ama gawaadhidii ku jiray systemka intaasaan kusoo gabagabeynaa waxaan marka la jecelahay daawadayaal inaan soo dhaweyno kooxda labaad iyaguna soo bandhigi doono bulshada halkan aan kula daawan doono bal systemkii ay sameeyeen iyo sida uu shaqeynayo waa kooxda Job Chatteris on challenge halka soo fadhiistaan kadibna ay nala wadaagaan nidaamka uu shaqeynayo barnaamijka halkan ay ku difaacadeen ay ku soo bandhigeen in uu yahay barnaamij suurtagal ah oo soo dhaweynaya kooxda Job Chatteris soo dhawaada waxaad haystaan 5 daqiiqo kale oo ah inaad uga faa'iideysataan in shaqada qabanaysan ama shaqada soo bandhigtay halabuurkaad ku sameeyeen inaad tustaan nidaamka uu shaqeynayso horta waxaan marka wasaan laba qaab la iskaga diiwaangelin karaa intaan diiwaangelinta waxaan u gelin halkan waad aragtaan analyzing ka kale marka waxa jira wax badan la yiraahdo ama dadka qaar ay aaminsan yihiin PHP Python to kaliya in analyzing iyo waxa data analyzing ku wanaagsan tahay laakiin qaybta data analyzing ku PHP Python to ma qusayso webka waa qayb ka madax banaan luqadaha kale ee maxay sida jaafada qaybteeda maxay website-yada ama PHP do kale loo adeegsan karaa waxyaabo yar oo analysis oo maxay ama data lagu soo saaro sida halkan macluumaad ka muuqdaba 3 country waa la iska soo diiwaan geliyay 4 company waa is diiwaan geliyay aduu waa qowl waad aragtaan yaa waxba ku habsaamin waxaan ugu horreyn ku geli doonaa waqtiga ugu yar awoodeed barnaamijkan aan doonayna faa'iidooyinkiisa kale aan sii sharaxo ciwaanna aan hore u sameeynay kaliya marka doonaysa inaad saweyso waxaad tagaysaa halkaas aanaab job seeker hada tahay qof maxay shakhsiya ayaa taabanaysaa hada tahay company inaad kamileysa taabanaysaa related companies ka ayaa marka hore halkan ku soo galaysa aragtaan sidebarkaasina waxaad kala soconaysaa notification kaadi oo kale history-gi iyo department-ga marka idin leeyahay waa qaybta idin lahaa shaqaalaha iyagoo goobta shaqada ka maqan ayaa hab online dhaqdhaqaaqa shaqada qaab software ee ula socon karaan iyo flowers-kaadi waa taan systemkan wuxuu leeyahay qaybaha social media ugu wanaagsan oo kale sergeant oo kale hadda waa ka tusaalahan haddii qofkii shaqada la soo xayeysiiyay markuu codsanayo wax kale uma baahna annaga waxaan isticmaalnay PHP iyo JavaScript library-da gaar ahaan jQuery Ajax kuwaas oo waliba ka caawinayo in page-ka qofka markuu isticmaalayo iyadoo data badan aan ka bixin waqti badan aan ka bixin browser-kan aan reload isku dirin in xogta la soo saari karo markiiba tusaalahan apply this job markaan raahno waqti yar kooban ay qaadatan xisaab xagan imka macluumaad badan kuma jiro laakiin shaqo macluumaad badan aan ku soo xayeysiinay tusaalahan qoraal badan qurux badan taasoo kale hadaan ku dhufano waa ka halkan waad kala jaad gareyn kartaa tusaale ahaan shirkadii waxaad oran kartaa halkaas kala jaad gareyn kartaa shaqadana saas aad u codsanaysaa wax page-kana saad imka aad aragtaan wax reload isku ma diraayo hadaan ka sii gudbo sergeant hadaan galo users ayaa search gareyn kartaa ama waxa search gareyn kartaa job ayaa search gareyn kartaa qaybta kale hadaan u sii galo maxay postiyada waa qaybta social media oo kale ahayd imka tusaale ahaan annagu marka hore kamaan xirin si toos ah ugu xirin qabyaalada laakiin waan awoodnaa inaan ka xirno taan waxaan u sameeynay oo hore aan ugu xiri weynay in aan marka hore bulshadu inay raali ka yihiin tusaale reer oo kale marka la soo qoro reer waxa laga yaabaa qoys oo kale inay noqdaan marka inaan alliance badan tan ku sameeyno dhankaasna aan qabyaalada aan kaga hortagno ayaan ugu talagalnay maadaama barnaamijkan social media ahaan loo isticmaali karo wax lagu soo maxay loo garan karo tusaale ahaan qoraalka saas isku qarinaya commentiga kale marka qabyaalad wax qabyaalad ama reer aad ku darto saas kale isku qarinaya comment waad ka bixin karaysaa hadaad u baahato saas comment ugu bixin karaysaa qaybtaasuna waa qaybta maxay haddii marka imika aan u galo
aan u galo qaybta kambaniyada tusaale kambani hore aan u sameeyay iyo qaabku shaqadu wax haysiinayo kala markaan soo galo mid hore aan u sameeyay gali doonaa notificationada soo gaaro aad ila arki doontaan qaabkii ahaayeen iyo qaabku u eegayo portfolio-yaha dadka shaqada soo codsada su'aalahan 7 ayaa ku jira halkaas aad aragtaa notification su'aalahan notification ku dhufto shaqada imika teacher marka hore waa arkayseen ma filaya shaqa teacher saas oo kale magac dheer uu ku qoran inay xayisiisneed shaqadaasi ayuu wuxuu ku leeyahay 4 qof ayaa soo codsaday 4 notification baa ka soo galay 4 tina waa kuwa su'aalahan waxa waraysa si profile uu oranaya maxay oo oranaya halkaas uu kala soconay anigu imika horaan barnaamijka ciwaanadan ugu isticmaalay oo imika ciwaankii hore idin tusayay ayuu ahaa qofkii shaqadoonka macluumaadkiisii iyagoo maqal iyo muuqaal imika fiidiyoyada sample ahaan ayaan u soo geliyay laakiin qofka wuxuu soo gelin karaa tusaalahan xirfadda gacanta hadduu ku maxay yaqaan graphic designer uu kale yahay ama graphic motion waxyaabihii uu sameeyay ayuu soo gelin karaa tusaale ahaan laakiin anaga sample un baa imika soo gelinay CV-yadiisii ayuu soo gelin karaa tusaalahan CV-ga waa ka tusaalahan shahaadooyinkiisa oo kale ayuu soo gelin karaa ama hadduu abaalmarin hore ugu guuleystay ama shahaado sharafyo hore u qaatay waxaa macluumaadka marka waxay ka caawinayaan in uu ku kalsoonaado HR-ki barnaamijkiina anagu waa barnaamij sida Facebook oo kale loo isticmaalayo waa aniga idin lahaa social media featureska ugu caansan ayuu leeyahay marka dadka xataa waxay soo jiidanaya aad u soo jiidanaya maadaama dadka aan la tartamayno ama website-yada aan la tartamayno features badan oo macaamiisheena raali gelinayo aan heesano teeda kale barnaamijkan marka inta aan kaga baxo oo profile-kii wuxuu markaa aragtaan follow uu oran karaa imika hore follow uu yiri laakiin imika aan follow baan oranaynaa marka waxa uu waa kuwa marka tusaalahan qofkii shirkadda wuxuu imika eegi karaa shaqadaas imika automatic ugu taagan waa shaqadii ugu dambeysay wuxuu gelin karaa shaqooyinkii uu soo xayisiyo dhan wuxuuna arki karaa ciddii soo maxay soo codsatay iyo dadkii soo codsaday tusaalahan imika tan oo kale hal notification baa ku taagan graphic design title-keeda sida web designer mid ah saad aragtaan iyadan haddaan search iraahdo waa 0 waxba lagama soo codsan day to day inuu ku eegi karaa waxyaabihii la soo codsaday notification-kii aad baad mahadsantahay waqtiga kaa dhamaaday 5 daqiiqo waxaan filayaa inaad uga faa'iidaysatay isa practical barnaamij soo samayso waxaan jecelahay inaan ku sii socono isla markaas inaan sii wadno weli qaybtii practical-ka ahayd waxaan u yeedhi doonaa oo imika barnaamijkan iyaguna ku soo madhigi doono qaybtii practical-ka ahayd ama tusay taabsi kooxda West Touch way jecel halkan inay yimaadaan kadibna ay nala wadaagaan bal nidaamkii isbitaalada iyo caafimaadka uga shaqeynayeen iyo hanaanka xogta ay u sameynayaan oo soo dhaweynaya bismillaah waa kan application-kaygu halkan ka bilaabmaya marka halka waxa ku qornaa macluumaad ku saabsan website-ka marka hadda waqti ma hayno laakiin xagga waxa waa user-iska xagga ay ka galiyeen feature-kii user-iska ka galayeen marka user-iska gareyn kara application waxa weeye waa 5 user weeye waa 3 la tacalluqa caafimaadka x-ray-gii medical test-gii iyo pharmacist-gii iyo qof online appointment ka shaqeeya iyo qof death and burial diiwaan galiya marka hadda waxaynu ku galaynaa administrator baan ku galaynaa marka dashboard-ku waa kan ugu horeeya halkan waxaan isku dayaynaa hadda inaan patient diiwaan gelino inaan death iyo burial diiwaan gelino inaan disease diiwaan gelino intaasaan isku dayaynaa marka waa arki kartaan halkaas waa accountiska administrator iyo user markaa sameynayso xaggana waa patient cusub markaan diiwaan gelino xaggana waa death and burial markaan diiwaan gelino xaggana disease markaan diiwaan gelino wey xaggana backup baa data ka qaadan karnaa waxaan isku daynaa patient inaan diiwaan gelino oo codsiyada dirno 4 codsiin 3 codsiin aan dirno intaas marka patient-ka datadana laga buuxinayaa datada waa data dhameystiran weeye waa waxa inta badan ay dhakhaatiirtu ka buuxiyaan marka qofka phone number-kiisa halkan lagu qori karaa ama number isaga u sira oo gaara oo hadhow uu datadiisa lagu search gareyn karo inka tusaale ahaan oo kale number baynu gelinaa magac baynu gelinaa marka macluumaadkaasna waa macluumaadka inta badan ay dhakhaatiirtu ka buuxiyaan patientiska marka hadda maadaama waqti u hayn intaas baynu ku joojinaynaa marka datada badankeedu waa optional dhakhtarku uu ka baari karaa hadduu ka baarin yani datadaas oo kale hadduu ka baadin ama qodobkaas oo kale hadduuna ka baarin uu iska dhaafi karaa waa wada optional wey maadaama inta badan dhakhaatiirtu kama wada baarhaan safe aan odhanaynaa marka datada waa tan kii u dambeeyeen diiwaan gelinay waa kan marka waxaynu u sort garayn karnaa date modified oo kale waan u sort garayn karnaa lambarkii patient-kii ugu dambeeyeen diiwaan gelinay baa halka soo dhigmi kara marka halkaa waxaad ka aragtaan complaints wuxuu ka codsan karaa 3dii ama x-ray ama medical test ama pharmacist buu codsan karaa halka update buu ku samayn karaa datada
halkaa view buu ku samayn karaa, halkaa print datadii buu soo daabici karaa. Marka hadda waxa ugu muhiimsan aan xooga saarna waxa weeye inuu dalbado in X-ray oo kale laga soo qaado ad complaint baan odhanna. Marka halkaa waxaa yaala laboratory request form symbol ah si uu dhakhtarku ugu xasuusto uu symbol ahaan uga qaato. Imika tusaale ahaan oo kale waxaan doonaynaa inaan ka soo baadhno qaybtaa ugu dambeysa BSA oo kale waa dhiigaga inta badan la iska baadho mid ka mid aan filayaa. Markaan waxaan odhanaynaa dhiiggaas oo kale ka soo baadh, dalabka waxaynu u diraynaa medical testigaan u diraynaa, safe aynu odhanaynaa. Marka dalabkaasi waxaynu eegaynaa inuu ku dhacay medical testigii. Marka waxaynu hadda iska dhigaynaa user medical testi ah oo kan marka patientkii imika datadiisa laynoo soo diray. Marka hal request buu soo dhigaya marka requestiga waa ka hadda aan soo dhignay. Marka requestigaas waa inuu noqdaa dhiiggii imika aan dalbanayna ee BSA ahaa. confirm baan odhanaynaa uu aqbalay requestigaas. Okay, BSA waa dalabka imika uu dhakhtarku inoo soo dalbaday uu yidhi yacni BSA ka soo baadh patientkaas. BSA gii oo kale tusaale ahaan waan ka baadhnay, resultigiisii baan halkan ku qori karnaa. BSA resultigiisu tusaale ahaan oo kale saas oo kale ayaan ka dhigaynaa. wixii commenti oo kale halkan uu ku qorayaa, wixii total amount uu halkaa patientka lagaga qaaday yacni dhiig baadhista lagaga qaaday xaggaas ayadna lagu qoraya. safeynu odhanaynaa daatada markaa saasay ku safe garaysmatay. waxaan hubinaynaa markaa inuu dhakhtarkii daatadaas ay u noqotay oo uu dhakhtarkii daatadaas u helay. Marka haddana waxaan iska dhigaynaa dhakhtarkii oo kale waa kan patientkii view data baynu odhanaynaa. Marka daatadiisii weeyi, daatadan wada bannaan waa daatadii markii aan iska daynay weeye aanan buuxin. waa requestigii oo laga soo jawaabay oo dhammaystiran. marka symbol baan xabadda kaliya ka soo qaadanay. Marka macluumaadka oo dhammaystiran buu dhakhtarku dalbanaya, macluumaadka oo dhammaystiran baa looga soo jawaabaya. Marka jawaabta marka uu helo dhakhtarku halkaas u go'aan ka gaaraya ama dawooyin ugu qoraya ama uu disease ku magacaabaya, saaseen daatadiisa ku galaysa. Marka waxyaalaha kale administrator kale markaan doonino, administratorka haddii aad gasho passwordku waa encrypted, lama arki karo. intan ma ahan pinkiisu waxa weeye waa admin weeye, laakiin marka user ahaan aad ugu jirto ma arki kartid oo wuxuu soo dhigayaa kaas aanan jirin. aad iyo aad baad mahadsantihiin kooxda Westage. waxaad ka faa'iidaysateen waqtiga aad haysateen, waxaad ka dhamaaday 5 daqiiqo. waxaan rajaynayaa in badan xogta aad bixisaan practical aad bulshada ula wadaagteen. barnaamijka tartanka hal-abuurka ee tiknoolajiyadda 2021 waxaa iska kaashaday islamarkaasina barnaamijka wada fulinayay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Somaliland iyo sidoo kale bankiga caalamiga ah ee Premier Bank. daawadeel weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka xisaab badnaa tartanka hal-abuurka tiknoolajiyadda ee sanadka 2021 waxaa loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dhalinyarta hal-abuur kale. waxaan aad ugu mahadnaqayaa xubnaha guddigooda waqtigeeda qaaligaana siiyey iyo dhammaanba ka qayb qaatayaasha barnaamijkan sida tooska ah idinku tabiyay sawirada iyo muuqaalada quruxda badan iyo guud ahaanba intii tartanka uu socday aqoonyahankii kala duwanaa ka qayb qaadanay barnaamijka. habeenkan ama waqtigan barnaamijka groupkii iyadii kala duwanaa ka qayb qaadanay waxay ahaayeen Elite Software, Job Charters iyo Westage. waa 3 team oo soo bandhigay runtii barnaamijyo aad u qiimo badan. halkan hortiina waxaa fadhida xubnaha guddida, waxay mareen dhammaanba istiijadii kala duwanaa 3daasi gruuba ee ahaa qaybtii hore bandhiga iyo difaacashada barnaamijka ay wadeen iyo su'aalihii kala duwan inay ka jawaabaan oo ahayd wejiga labaad, iyo tii saddexaad oo ahayd qaybta practicalka ee tusoo taabsi. waxaan imika taagana waa gunaanadkii barnaamijka iyo in mar saddexaad aan qiimayno. waxaan u wada yeedhi doonaa halkana iman doona dhammaanba 3da group ee Elite Software, Job Charters iyo Westage. halkana jecelahay inaad timaadaan. waxaan idinku soo dhaweynayaa stageka. soo dhawaada. waxaan aad u soo dhaweynayaa inaad nasiib u heshaan inaad ka mid noqotaan tartanka hal-abuurka tiknoolajiyadda sanadka 2021 iyo inaad ka mid noqotaan dhalinyartii halkan ku tartamaysay oo runtii ahaa dhalinyaro wada aqoon-yahana runtiina soo bandhigay barnaamijyo iyo barnaamijyo aad u qiimo badan kuwaasoo ahaa qaar ay hindiseen islamarkaasina hal-abuurkooda ay sameeyeen. waxaan idiin rajaynayaa dhammaantiin ba inaydin halkaa kaga daalin oo aad sii wada doontaan islamarkaasi aad sii abaqaadi doontaan. gruub walba qof ayaan ka siin doonaa. waxaana jeclay inaan weydiiyo aragtida barnaamijkan iyo habeenkan caawa tartankan adaga ee dhex maray 3 gruub sida aad u aragtaan. waxaan ku soo dhaweyn doonaa kooxda horeysa ee dhinacay taagan Westage. bismillaahi raxmaani raxiim. magacayga waa maxamed cumar cismaan. barnaamijkan anu waxaan u arkaa horta barnaamij aad u wanaagsan oo dhalinyarada dhiirigelin aad u weyn siinaya. waxaan filayaa inuu yahay barnaamij dhiirigelin siinaya dhalinyarada IT-ga oo kale. micnaha anagu markaanu IT ka soo baxnay programming aan soo baranay, programmingkana way fahmayaan dadka IT-ga coding iyo waxba la isticmaalayaa.
codingkaas iyo hawshaasna waxa weeye wax markasta inaa practical la sameeyo computerka la dul fadhiyo u baahan qofkii markuu arko tartamo noocana iyo inuu wax uu ka faa'iidi karo oo wadanka ka helo oo ka heli karo wuxuu ku dhiiranayaa inuu programmo kale soo sameeyo kuwii hore uu hayayna uu develop gareeyo sidoo ku soo saari lahaana uu filweeda qabto aad baad u mahadsantahay waxaan u dhiibaya mid kaloo ka mid ah kooxda Job Chatters dareenkaaga iyo barnaamijka saad u arkaysa iyo saaxiibadaadii kale kula tartamay bandhiga ay sameeyeen run ahaantii barnaamijkani wuxuu noqon doonaa barnaamijyada wax ku ool kale maxay ahayd toolay waa nin soo aad iyo aadna waan u soo dhaweynay marka horena kuwan oo kalena insha Allah waxaan rajaynaynaa in aanay halkaa lagu joojin doonin oo barnaamijyo noocan oo kale ahna maxay toolay la qaban doono run ahaantii waa barnaamij awoodda dhalinyarada taabanaya amba maxay toolay juhdiga amba waxa ku jira maskaxdooda ay ku soo bandhigi karaan waa barnaamij aad iyo aad soo dhaweynayo run ahaantii anaguna mawduucan aan wadanay haddaanu guulaysanay haddaanan guulaysaninba horta barnaamij halkaa kaga hadhi doona ma noqonayo barnaamijkeyguna kuma eegaan doono wasaarad keliyata amba dal keliyata markaa wuxuu noqon doonaa insha Allah midaanu adduunka oo dhan aanu ku rajin weynahay inaanu gaarsiino aad baa mahadsantahay haddaan markaa ku guulaysanay ad walbana waan hambalina saxibadey waa tahay ugu dambeyntii Alert Software waxaan jeclahay inuu gabagabadii barnaamijka qiimeyntii dambeysa marayna dareenkaaga aad barnaamijka la wadaagto بسم الله إلهي ما هذا كلام مرة كهراء إنه سورة قليل إنه قبض سبت حفلة سو كلا وحنا لقنا واحد مليان يا أصحاب تدا قاليا هاوشان وضبطنا سيد عبد الله حبيبي عبد الرحمن أحمد قودن وحنا لا يقول برتشينه daawadayaal waxaynu taaganahay gunaanadkii iyo gabagabadii barnaamijkii xisaabadnaa ee tartanka halabuurka teknolojiyadda waxaan aad ugu mahadnaqayaa xubnaha guddiga halka fadhiyey Professor Aro oo gudoomiyaha guddiga waxaan dib u eegi doonaa labadii qiimooyinood ee hore stageska sidii ay u helayso bulshada ay u ogaato dhibcahaasi iyo sidii isu kordhayeen iyo marba wixii ku soo kordhay waxaan eegi doonaa kooxda Westage ayaan jecelahay inaan eego labadoodii qiimooyinood ee hore qaabkay u heleen mar waxay ku guuleysteen 200 oo dhibcood halka markii labaad ay difaaceen barnaamijkoodana ay ku guuleysteen isla markaasina ay gaareen 215 dhibcood waxaan u rajaynayaa inay guuleystaan waxa hore qiimeyntii saddexaad oo ah tii practical ahayd oo rajaynayo in kulay dhibco soo biri doonaan kooxda labaad ee Job Chatters iyana qaybtii hore ee qiimeyntii horeysay ama bandhigii hore waxay iyaguna sidaas si lamid ah heleen 200 halka markii dambana ay 5 kor u dhaafeen kooxdii ka horeysay oo ay gaadheen 220 iyana sidaas si lamid ah waxaan rajaynayaa inay guuleystaan oo qiimeynta saddexaad ay dhibco badan ku kordhi doonaan Alert Software ayaan jecelahay in iyana aan idla wadaago qaybtii hore waxay heleen bandhigii horeeyba 255 halka markii dambana heleen 267 saddexdiina waxaan rajaynayaa inaad guuleysataan waxaan markan ku wareejin doonaa guddigii kala duwanaa halka fadhiday in dib laydii qiimeeyo bal wixii dhibcii hore iska bedelay waxa soo kordhay kooxda Westage waxaan jecelahay xubnaha guddiga halkan fadhida waxaan anagu aad iyo aad idinku mahadnaqnaa waqtigiina qaaliga aad bixiseen in mar saddexaad aad qiimeysaan markii aad aragteen practicalka ay sameeyeen iyo wixii ay soo bandhigeen Cabdirashiid waan ka bilaabi doonaa markii aan arkay demonstrationkii ay Westage samaysay qiimeyntaydii hore 5 baan ka jaray 55 baan siiyey waa tahay Cabdirahmaan Cali Xirsi kooxda Westage markii ay isdifaaceen barnaamijkooda aad aragtay maxaa soo bandhigay practicalka maxaa ku kordhisay maxaa iska bedelay aragtidaadii hore saddex baan ugu daray saddex kala kor ugu dartay waa tahay engineer Farxaan Aadan runtii barnaamijku waa barnaamij aad u wanaagsan teamkuna shaqo aad wanaagsan bay qabteen anoo rajaynaya inay user interface-ka wax badan ka bedeli doonaan sidoo kale waxay muuqanaya passwordkii oo plain text ah ka qudhisay in la hash garayn karo markii hore 50 baan siiyey 5 baan ugu daray 55 aad baa mahadsantahay ugu dambeyntii Dr. Idris kooxda Westage maxaa iska bedelay dhibcii hore aad bixisay kooxda Westage waxay soo bandhigeen barnaamij aad u qiimo badan walibana xanuunada waxay qaybta xanuunada oo kale dhakhtarka oo kale u tilmaamayaan macluumaadkaas oo kale waan ku hambaleynayaa inay brief siiyaan dhakhtarku inuu xanuunada qayb ka mid ah dooran karo marka qiimeyntooda waxba iska bedelay waxaan ugu daray 7 aad baad mahadsantahay waxaan rajaynayaa durtooyna kor soo kaceen dhibcii ay haysteen waxaan eegi doonaa saaxiibadooda kale ag taagan iyaguna kooxda Job Chatters markii ugu dambeysay waxay haysteen 220 waxaan ka bilaabi doonaa dhexda Cabdirahmaan Cali Xirsi maxaa kooxda qiimeyntoodii aad ku kordhinaysaa waxaan ugu daray 2 aad baad mahadsantahay engineer Cabdirashiid Maxamed
inkastoo barnaamijku yahay barnaamij aada muhiim u ah haddana waxaan arkayay in xoogaa shaqo u dhiman tahay sidaa awgeed konton baan maxaan aday siiyey oo 5 baan ka jirtay 5 baad dib uga jartay waa tahay doctor Caydaruus Maxamed kooxda job charters barnaamijkooda horta waa barnaamij aad u wanaagsan laakiin taladan siin wax weeyaan wixii comment ah iyo wixii talahaan la siiyo waxa fiican waa constructive waa wada dhisaya maaha istifaac qof inuu galo marka taas wax weey waa talahaan marka waxaan natiijada hor ku darayaa 6 yaa waxay noqon doontaa 60 aad iyo aad waa mahadsan tahay ugu dambeyntii engineer Farxaan Aadan runtii barnaamijku waa barnaamij aad u fiican waxaana rajaynayaa inay target gareynayaan inay Facebook Twitter يعني social media applications wax la mid ah inay mustaqbalka ay sameyn doonaan barnaamijku waa data intensive waxa la oran karaa waxa weeyaan bandwidth hungry wuxuu u baahan yahay bandwidth badan way qofka kaliya waxa laga qaadaya certificate-kiisii waxa laga qaadaya video iska duubay waxa laga qaadaya CV-giisii marka inaad ku tala gashaan storage-ka insha Allah mustaqbalka aad meesha hosting-ka diganaysaan inaad ka heli kartaan space fiican sidoo kale ku tala gashaan dadkeenan internetku aanu yar fiicnayn maadaama video image waxyaabo badan upload gareynayaan taaqudheeda inaad focuska yar saartaan markii hore 60 baan siiyey 5 baan ugu daray waxaan rajaynayaa inaan bari dhow arki doono iyadoo caalamka oo dhan laga isticmaalayo systemkooda aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin xubnaha guddida qaabkaad u qiimaysan iyo sidaad u soo gunaanday qaybtaasi labaad waxaan rajaynayaa waxa hadhay kooxdii u dambeysay oo ahayd kooxda Elite Software waxaan ku bilaabayaa doctor Caydaruus kooxda Elite Software maxaa iska bedelay ugu dambeyntii ama qiimayntii u dambeysadaysay markan eegay systemkooda iyo sidoo soo bandhigeen iyo macluumaadka waliba faraha badan ee khudaarta ku saabsan iyo ascaarta natiijadii hore waxba iska bedelay laakiin intaan natiijadan cusub aan sheegin talahaan waxaan siinayaa ascaarta khudaarta haddii isbedesho kale qofka taloo kale customerka ama consumerka inuu message helo kale inuu helo kale in systemkiina aad ku dartaan oo kale ayaa soo jeedinayaa marka markiskan ugu daray waxay noqonaysaa 3 aad baad mahadsan tahay engineer Farxaan waxaan ku horeynayaa xagga recommendationska waxaan arkayay marka la qorayo khudaarta magaceeda in toon ama basal gacanta lagu qorayo waxaa laga yaabaa in siyaabo kala duwan loo qoro marka hadhow maxaa toon ku jira systemka lama heli karo marka maadaama khudaarta la yaqaano ka dhiga drop down meel la dooranayo sidoo kale nooceeda tusaale waxaad qoraysaan saxaarad taana siyaabo kala duwan baa loo qori karaa marka maadaama aad garanaysaan yani miisaanada kala duwan ay leedahay kiish saxaarad kuwaana inay drop down noqoto user interface-ka ama muuqaalka systemka inaad dib ugu noqotaan taasina waa iga talo markii hore waxaan siiyey 65 laban ugu daray 67 waa tahay engineer Cabdirashiid Maxamed kooxda Elite Software maxaad iska bedelay natiijada hore siisay kooxda Elite Software waxay xalinayaan problem runtii baahi weyn loo qabo oo ah dadkeeni beeratada ahay waxay iibinayeen platformka ay soo bandhigeen waxaan isleeyahay waa platform lagu faa'iidi karo wax badan ka bedeli kara qiimaha iyo magaranaysa faa'iidada ay heli karaan dadka beeratada ahi waxay ina tuseen qaybtii webka waxaan jeclaan lahaa inay ku daraan qaybtii mobile appka sidoo kale inay barnaamijka maxaan rahday dib u habeyn fara badan ku sameeyaan marka waxaan siiyey 60% aad waa mahadsantahay ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxaan ugu daray 5 baan ugu daray waa tahay waxaan rajaynayaa inta barnaamijka daawanaysa ee warbaahinta iyo telefishinada ka daawanaysa si toos halkaas ay ula socdaan dhabcaha iyo isu bedelayeen sidoo kale guddiga iyo dadka kale goobjooga laftigooda waxaan rajaynayaa iyana saas isla mid u arkayeen iyo dhammaanba tartamayaashii oo garabkayga taagan oo iyaguna la socda shaashada ka muuqata halkan
iyo dhibcuhu sida isu bedelayeen dhammaantiin baa ku bogaadinayaa inaad soo bandhigteen barnaamijyo xiiso badan waxaan jecelahay xubin ku hadli doonta afka guddiga in ay ku dhawaaqdo guulaystaha habeenkan caawa saddexda kooxood ee Westage Job Charters iyo Elite Software cabdiraxmaan cali xirsi ayaa afka guddiga ku hadli doona kuna dhawaaqi doona kooxda ku guulaysatay habeenkan caawa waay bismillaahir raxmaanir raxiim dhammaan kooxaha caawa halkan ku tartamay waan wada bogaadinaynaa anoo ku hadlaya afka guddiga ee qiimeynta waayo waxay runtii na gelinaysaa yididiilo in dad dhalinyaro ah oo waddanka wax ku bartay intay baahiyihii bulshadeenu qabtay ka fikiraan inay haddana ka fikiraan inay sameeyaan barnaamijyo tiknoolajiyadda casriga la socda oo haddana xallinaya mashaakilaadkoodii saddexda runtii barnaamijba aad bay u qurux badnaayeen mid walibana mushkilad bulshada maaragtay haysata ayuu xallinaya waxaanan qabaa haddii dhammaantood la wada maalgeliyo oo la isticmaalo inay mashaakilaadka ay xallinayeen maaragtay bulshada wax badan kusoo kordhin doonaan iyo dowladdaba tartanka yani caadada tartanka ama sunnaha tartanka wuxuu yahay iyadoo la wada guulaystay oo la wada dadaalay haddana inay cidi uun maaragtay extra mile ay sii yar cararto oo maaragtay inuun ay ka dheeraysa inta kale sidaa daraaddeed ayaa caawa halkan waxaa ku guulaystay kooxda Elite Solutions saaxibku tuma aad baan u bogaadinaa aad baan u hambalyeynaa kooxda Elite Software iyo sidoo kale labada kooxood kale Job Charters iyo Westage oo runtii dhammaantoodba soo bandhigay barnaamijyo aad u qiimo badan waxaan rajaynayaa in aad u tagi doontaan kooxda caawa soo baxday kooxihii kale hore u soo guulaystay oo weli tartanku maray meelihii ugu xisaab badnaa iyo qiimeynihii ugu xisaab badnaa sidii barnaamijka caadada u ahayd waxaan jeclay isku dubaradaha barnaamijka ahna gudoomiyaha guddiga qiimeynta iyo kala saaridda tartanka halabuurka tiknoolajiyadda 2021 Professor Mubarak Ibrahim Ar inaan kelmadiisa siiyo ku soo dhow Professor bismillaahir raxmaanir raxiim ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u mahadnaqnaa ugu horeynta ka bacdi waxaan runtii aad ugu mahadnaqaynaa wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda waxaan kaloo u mahadnaqayaa Premier Bank waxaan sidoo kale runtii aan u mahadnaqaynaa guddida qiimaha badan ee halkan inala joogta oo runtii waqtigooda oo aad u culus inoo soo horay inay hawshan nagala qayb galaan oo iyagoo ah runtii ah injineerada dalka marka laga ICT marka Soomaaliland laga hadlayo markaba waxa kuga soo dhacaya ragga halkan fadhiya marka iyaga si gaar ah ugu mahadnaqaynaa waxaan kaloo u mahadnaqaynaa ardaydan ama tartamayaasha qiimaha badan ee barnaamijyada aadka u fiican runtii caawa inoo soo jeediyey waxaan qabaa dhammaantood inay guulaysteen dhammaantood howlo aad u wanaagsan ay soo bandhigaan ciddii ku guulaysatna runtii waa inuu haynaynaynaa barnaamijkeenu runtii caawa halkaas inoogu xiran yahay aad iyo aad buu mahadsanyahay Professor Mubarak Ibrahim Ar waxaan daawadayaal soo gaarnay gabagabadii iyo guntii barnaamijka tartanka halabuurka tiknoolajiyadda ee sanadka 2021 waxaan u mahadnaqayaa Professor Mubarak Ibrahim Ar oo isku dubaradaha iyo gudoomiyaha guddiga kala saaridda aqoonyahanka sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa Dr. Cabdiruus Maxamed Ibrahim Engineer Farxaan Aadan Haruun cabdiraxmaan cali xirsi iyo injineer cabdirashiid maxamed ismaaciil dhammaantood baad baan guddiga u hambalyeynaya waxaa kaloo u mahadnaqayaa sawir qaadayaasha kala duwan ee halkan inagula sugan oo dhammaantoodba u hagar baxayn si qurux badan ay u soo tabiyaan muuqaalada loogu talagalay in warbaahinta kala duwan laga tabiyo waa dhammaanba bahda barnaamijka halabuurka tiknoolajiyadda ee sanadka 2021 ku dhaafayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa qayb ka mid ah barnaamijkeena tartanka halabuurka tiknoolajiyadda ee sanadka 2021 waxaanan ku kulmi doonaa qayb kale oo xiiso badan balse ka hor waxaan idinku dhaafi doonaa barnaamij kale oo kan lamida ka hor intaan ku kulmayno waa bahda kala duwan ee barnaamijka daadihinaysa howlwadnada dhinaca surqaadii isku dubaridka iyo howlwadnadii iyo guud ahaanba mas-uuliyiintii kala duwanaa barnaamijka qaybaatood ilaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bani aadamkuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkee yuu kaga bogtee baaqin waa barashada dadweynaha baaqin waa barashada dadweynaha in la baahiyaayo la ballaadhiyaaye in la baahiyaayo la ballaadhiyaaye